dalka Masar ayaa maalmihii la soo dhaafay si weyn loogu hadalhayay isla markaana dood culus ay ka dhalatay qorshe la soo bandhigay oo bixinaya tilmaamo ay raacayaan labada qof ee isguursanaya guurkan oo nin garyaqaan ah soo bandhigay isla markaana loo bixiyay guurka tijaabada ayaa dadweynihii si weyn ugu kala aragti duwanaadeen isla markaana keenay in si xooggan loogu falanqeeyo baraha bulshadu ay ku wada xidhiidheen dalkaasi bal haddaba aan soo dhaweeyo wariyahayaga Xuseen Barre oo inoo haya shuruudda uu dhigaya guurkaasi sababta uu garyaqaanku u cuskaday soo bandhigista qorshahan iyo waliba in xal laga gaadhay in kale oo maasanta Cabdi Xakiin sheekadan waxay salka ku haysaa muran bariyay dambe ka socday maalmaha u dambeysay baraha internetka gaar ahaan goobaha bulshadu ay ku kulmaan ee dalka Masar waxaana dhacday in lawyer ama qareen Masri ah oo lagu magacaabo Dr. Ahmed Mahran uu soo bandhigay qorshe cusub oo guurka loo qaabaynayo marka wuxuu qorshahan wuxuu faa'iidadiisu ay tahay in uu yareeyo furiinka badan ee dalka Masar ka jira isla markaana uu soo dedejiyo dhalinyarada iyagu aan hore u guursan ee ka baqaysa mas'uuliyadaha guurka marka wuxuu soo dhigay fikrad cusub oo ah in la sameeyo wax la yiraahdo guurka tijaabada ah waa gartay marka guurka tijaabada ah markaynu eegno qodobada guurkan dhigayo ee qareenkan uu soo xigtay ama uu iskaraya ama waxyaabaha guurka uu kaga duwanaanaya maxay tahay sida uu sheegay Dr. Ahmed Mahran oo ah qareenka fikradan soo bandhigay guurkan wuxuu guurka caadiga ah dadka oo caadi u yaqaan uga duwanaan doona in uu wato laba warqadood oo ah midii caadiga ahayd ee meherka iyo mid kale oo uu magac daray contract ama qandaraaska guurka oo ay labada dhinacba shuruudahooda soo bandhigayaan marka wuxuu sheegay in inta badan ay dhacdo in dadka cusub ee isguursada ay sanadaha ugu horeeyaba isfuraan marka wuxuu sameeyay guurka tijaabada si uu hirgalo wuxuu yiri waa in labada qof isguursanaysa ay qabsadaan muddo 3 sano ilaa 5 sano ah oo ay ku shaqeeyaan ama ay dabaqaan contract ay kala saxdeen tusaale ahaan gabadhu waxay soo dhiganaysaa shuruudeeda wiilkuna wuxuu soo dhiganayaa shuruudiisa kadib labada dhinac shuruudii ay soo bandhigteen baa laga qorayaa dhinaca kale ka saxeexaya inuu ogol yahay kadibna 3 sano tusaale ahaan ayuu contractkaasi shaqeynaya haddii 3 sano gudahooda mid ka mid ah labada dhinac uu ka baxo heshiisyadii la isla dhigtay waxa dhacaysa marka in uu xaq u yeelanayo kii kale ama dhinaci kale wiilka ahaado ama gabadha ahaato inuu isaguna aroosi ka baxo ama meherkii uu fasakho isla markaana uu xuquuqdiisa helo marka maxaa la faa'iiday marka maradii maana la mid ahayn sidii bariyo hore guurka hadii labada qof ay isfahmi waayaan oo ay kala tagaan haday isfahmaan ay sida nolosha ku sii wataan wuxuu ka duwan yahay oo sheekada xiisaheeda iyo nuxurkeedu wuxuu ku jiraa shuruudaha la kala qoranay ayaa shuruudo cajiib ah tusaale ahaan waxa dhacda in inta badan ay labada qof marka isguursanayaan wax ku heshiiyaan kadibna uu mid kamid uu ka baxo heshiiskii yani waxyaabaha keena burburka qoyska waxa kamid ah gaar ahaan dalka Masar in ay gabadhu ay sharad ka dhigatay in macnaha tusaale ahaan ay shaqayso maadaama ay qoyskooda biiliso marka uu isaguna u ogolaado in ay shaqayso laakiin waxa laga yaabaa sanad ama 2 sano marka isqabo in ay culays yimaado xaggii reerka oo uu wiil fiidaado marka gabadhii shaqadii ka fadhiiso marka ay gabadhii marka ku xirnaato inay kala doorato shaqadeedii iyo reerkeedii ama aqalkeedii marka si taa loo gudbo ayaa waxa loo ogolaanayaa sharcigan cusub ama fikradan cusub oo soo bandhigay qareenka Masriga ah in labada dhinac marka horeba ay contractkan ay kala saxanayaan ku qortaan tusaale waxyaabaha cajiibka ah kamid ah in gabadhu ay oran karto tusaale ahaan lama guursan karo oo ninku macnaha gabadh kale lama aroosi karo waa inuu hore u soo hoydaa habeenkii macnaha oo uu guriga ka dhixin waa inaan awood u yeeshaa in aan telefoonkiisa iyo computerkiisa iska eegi karo fariimaha u soo dhacay iyo dadka uu la xiriirayo tusaale ahaan marka haddii dee marka dambe ay la xumaato sheekadu oo uu inanka yidhahdo telefoonkaygu waan xigtay iyaduna waxay leedahay dee anna waan ka baxay reerkii qadaraaskiina waan ka baxay assalaamu calaykum waa sheekada cajiiba weeye Xuseen oo dee dabcan marka eegtada noloshii aadamaha taabanaysa weliba gaar ahaan dadkaasi Masar markaynu guur ka hadlayno guurku maaha un laba qof oo bannaan iska helay gaar ahaan guurka islaamiga ah oo de heshiinaya maaha ama ayagu wada hadlaya laakiinse marka laga yimaado dhaqanka iyo caadooyinka kolba deegaanka la joogo ka jira waxa salka u ah waxa weeye waa diinta weeyaan maxaa lagu soo gabagabeeyey markii dambe guurkan ama markii dambe maxaa la isla gartay waxa si rasmi ah arrintan uga hadlay markii murankeedu uu farabatay xarunta al-azharka ama al-azhar sharif oo iyadoo ah meelaha ugu muhiimsan ee loo noqdo xagga diinta islaamka wadamada islaamka marka al-azhar wuxuu sheegay in arrintani ay khalad tahay isla markaana ay ka baxsan tahayba shuruucdii islaamka uu guurka u dhigay
oo ay ugu horeyso in uu ahaado mid aan muddo lahayn yani haddaad tirahdid waan isqabaynaa bil ama 2 bilood dee guur ma aha markaasi waa wax kale marka fatwo ay soo saareen azarku waxay sheegeen arrintaasi inaanay waxba ka jirin saxna ahayn waata xuseen waa arrin ku cusub weeye bulshadii oo markaad eegto dee dabcan haddana dhinaca noloshii ka taabanaysa markaad eegto oo dee ninkani waxyaabuu xiganayo in dee guurkii hore u burburo ama reerihii hore u burburaan oo dee markaa wax laysla sii ogaado waxyaabahaas u xiganaya sideeba dhalinyarada guurdoonka ah iyo weliba bulshadu ay uga falceliyeen arrinkan waxaa dhacday horta dee inta badan waxaa lagu falcelinayay baraha bulshada oo inta badan baraha bulshada lagu soo bandhigaa oo ay dhalinyaradu kusoo bandhigtaan aragtidooda markaad eegtid faallooyinkii ay ka bixiyeen ama qorallada ay ka qoreen waxaa ka mid ahaa in ay qaarkood aad u jeclaadeen qaarkoodna kasoo horjeesteen gabdhuhu waxaa u moodaa inay aad ugu guuxayeen laakiin wiilasha xoogaa kasoo horjeeday jawaabaha ay kasoo yeedhay wiilasha waxa ka mid ahayd arrintani waxay horseedi doontaa in macnaha markaad gabadha reerkooda ka doonanaysid aad ku tiraahid adeer inantaada rabaa inaan guursado weliba oo aan soo tijaabiyo markaa hadday iga faadana 3 sano kadib waan kuu socodna haddii kala horaysanayaan marka yani arrinta tijaabada laga xanaaqay ereyga laga xanaaqa taas